maamulka gobolka Togdheer iyo kuwa degmada Burco ayaa maanta si rasmi ah xadhiga uga jiray cisbitaal caalami ah oo loogu talagalay xanuunada ilkaha oo lagu magacaabo Cigaal Dental Clinic oo laga hirgeliyay gudaha magaalada Burco waxaana munaasabad ballaaran oo loo qabtay furitaanka cisbitaalkan ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna gusimaha gudoomiyaha gobolka maayirka degmada Burco maayirka ku-xigeenka degmada Burco mas'uuliyiinta xaruntan caafimaad ee loogu talagalay xanuunada ilkaha xildhibaano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer waxaana go'aantii munaasabadaasi ka hadlay Dr. Maxamuud Maxamed Cabdilaahi oo ah mulkiilaha xaruntan caafimaad waxaanu ka waramay adeegyada kala duwan ee Cigaal Dental Clinic siin doona bulshada reer Burco iyo guud ahaan gobolka Togdheer aad bay farxad igu tahay in aan Burco aan ugu shaqeeyo ama aan cilmi wixii Ilaahay baray aan keeno Ilaahay waxaan ka barayaa inuu anigana igu guuleeyo adeega aan idin keenay oo ay dadkan ka faa'iideystaan madaxda gobolkana waqtigooda iyo kaalmadooda iyo wax kasta ay igu taakuleen kurayaan ila diyaarka ah iyo dhaqaatiirta kolleegayga iyaguna disaasoo kala diyaar ilaahay inay wax la qabtaanna waanu mahad celinayaan ma badinayo hadalka oo wax badan oo kale ma oranayo anigu diyaar baan idinahay idinkuna hadda diyaar tihiin oo wada shaqeynayna waxaan ku guuleysan doonaa insha Allah inaan dadka adeeg heerka ugu sareeya aan gaarsiin karo aynu gaarsiino maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Baadiso duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Togdheer oo inta munaasabadaasi socotay ka hadlay sheegin xaruntani caafimaad ay hay'ad mid ay u baahnayeen bulshada reer Burco ayna soo dhaweynayaan xaruntani xafladan waa furitaan dhakhtar aan oran karo waa aad iyo aad loogu baahan yahay Dr. Maxamuud iyo rooda ka hor inta dhakhtaran ka hor waa laba shakhsi oo si nolol shaqeeya si furan oo mutadawacnimo nolol shaqeeya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa saakana hadii noo soo kordhiyeen waliba doctorku noo soo kordhiyay takhasuskiisii wuxuu soo bartay oo damacsan yahay inuu dadkiisa ugu faa'iideeyo marka runtii aad bay loogu dhibaataysnaa dentistry la'aanta Dr. Maxamuud iyo tiimkiisan maanta inoo yimid runtii waxaan u maleynayaa inay maanta tahay revolution ama xal oran jiray isbedel weyn oo ku yimid adeega caafimaadka ee gobolka marka la isku wada qaado adeega caafimaad oo soo buuxsamay oo qayb dhan oo ka maqnayd ay ku soo korodhay munaasabadaasi intay socotay waxa sidoo kale ka hadlay xubno kamid ah dhalinyarada gobolka Togdheer kuwaas oo yana geestooda sheegay inay soo dhaweynayaan xaruntani caafimaad ee Cigaal Dental Clinic waxaan rajaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan reer Burco dhan ma doonayno reer Burco kaliya inay noqoto waxaan rajaynayaa inay noqon doono insha Allah dhakhtar looga yimaado guud ahaan geeyiga Soomaalidu degto oo dhan waxaan ku leenahay dhakhtar soo dhawow cid kasta oo gobolka horumar ka sameynaysa waan soo dhaweynaynaa dadku way ka sii tagaan laakiin Maxamuud wadanku soo guuro dib ugu soo noqdo waliba Burcuna la yimi marka welcome insha Allah guud ahaan hadalladii laga soo jeedinay munaasabadaas ayaa waxa soo afmeeray gudoomiye ku-xigeenka gobolka Togdheer ana gusimaha gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Maxamuud Yuusuf Ubaxle waxaanu sheegay inay ka maamul gobol ahaan ay la shaqeyn doonaan xaruntani caafimaad ay soo dhaweynayaan waxaana hadalladiisii kamid ahaa waxa weeyaan farsamada cusub ee dhinaca ilkaha ee baahida badan loo qabo ee aan u soo kordhiseen ee waliba adeegyadii ugu sareeyay caalamka waxaan aad idinka codsanayaa in runtii bulshadiina kuwa awoodda daran iyo kuwa awooda inay dhaqaale ahaan istibraanba si siman ugu wada adeegtaan oo aydan ku koobnaanin inta uun awoodaysa runtii maadaama oo aad tihiin ummadda qarankoodii iyo dadkoodii wax u soo bartay inta doontaan ka maqnaado iminkana dib ugu soo noqday waxaanu idin ballan qaadaynaa ka dawlad ahaan wixii awoodayada ee suuragala ee tansiilaada u baahantiin aanu idin fududeyno nooc kasta ay tahayba gabagabadina waxay mas'uuliyiintan si wada jira xadhiga uga jireen xaruntani caafimaad oo xarun casri ah laguna talagalay daaweynta xanuunada ilkaha waa Khalid Bakeyle shabakada caalamiga ee Itraaf News magaalada Burco.